waxay keentay marka nabarkaas in xogaa xusuustaydii ay yaraato oo waliba wixii aan marka 3 bilood hore oo dhan inaan waxba aan xasuusan waayo حتى وحي أنا صبرت يودن إيه نقدانين ككع دان كده حق الإسلام ديبانش ديجان محاب الشدة عاد إسلام هاي أو بوجو كجرا واحتروا خصوصا كرا علمي عم بارسن بوجو ديبانش ديجان قالوا كانوا واجد لرت أقول بدن بقول كيف بقول لقسم أيوه بحش لقسم أيوه دول كاسيدا وحوا هواجه رأهن شري دول كيمة وآد شقوة ما تكون أي كبر قتشرين كرانين سداد شكتي قروة شوكتي بطلانات وحبر الشداد إلى دوكسي كسرات كسوق عادة جامعة تقبل لوضي وحتى من مقالة مقدشو عاصمة الصومالية هذانا قدرين وأمريكا كوريس أد مقالة عاصمة مقدشو اعتمادي محاكو قولي يا بدنا وحي أن كأمسنا إن سماش بقولين بقى وحكا دوان أي ماشي كرانين وحن أوي من مقالة كده أدو في الفعينهن سو دوين تكون أكسن بدنا وحال هذا اللي هي دلنا الصومالية إن شغل عند الكيكيجين وحال لقيا مركز إكتيتو باريتانا سميسيد أنت شغل هيست أنت شغل عنتا إن أدو بدنتا أنت شغل عنتا محل السببين كرا قف وحكا قرار ما دلنا نوات لكن ما تشدو هالجامعات أو ما أنت إنه ينقانو أو المدرسة مكيا مسماري كيا ليه حفظها الجو حفظ الجبرتو قفل واحد على برتو حاجة سيريو على سيا وراجس هذا اللطورة مرك حرفت دي يكون شقيسان لهين قفك هدوسنا أقون قفك واحد كل على مارك شقران حتى دو واحد يسكت دايو نيت شبيا وحاجر ورد الجراعة runtii aad uga shaqeeya horumarka dhalinyarada Soomaaliya inkastoo ururka qaranka la isku khilaafsan yahay dawladuna ay sheegtay in iyadu dhisayso marka tan dawladan loo maamul goboleedyada oo kale waxa jira ururo iyaga u gaar ah sida Puntland oo adigu ka timid hadda Muqdisho aad joogtid urur dhalinyarada gobolka Banaadir midka qaran waa soo dhawaan waxa laga yaabaa doorasho guud inay dhacdo sida dawladda wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ay ku dhawaaqday adigu ma laga yaabaa inaad sharaxnaatid siyaasadda iyo xil raadis iyo waxyaabo noocaas ah xogaa badan ma jeceli oo qaybta kale aan badan ku dheereeyaa isla halka hadaan ka dhaxgalo waxaad sheegtay in siyaasadaadan jecleen dad badan oo saaxiibadaada markaan xog wareystay Puntland inaad mar aad u tartantay ururka jaamacadda markaa dhiganaystay EAU ama East African University markii dambana aad ka tanaasushay ma beeninaysaa حتى أورك مركز اللي جاي ماذا حتى واحد اسكت دينا أطرتمه قرها الشعب الصومالية حدنا يمسوا رجالين ده أول كان اسكت دي يمسوا رجالين مركز يسوي اسكت دافع عن سيري ورودن هذا الكلام وقايا في عامبو تصالة نبى وحكيم يتقبل هذا الصومالية مقدشوا أي يمد هذا هو قصة واحد وحكونا مركز طول ما نبرتنا هذا حجابي كتر سنة أنت بدنا نحن كتير نشري بالك حفظ لي هذا الشيء حمر ويني لكن هذا حوير هذا وحبروي waa isku qabsanay wataas waxa jirta magaalooyinka dhan waxa ka dhisan ururo iyaga iskooda isku xilqaamay markaan tusaale baydhabo oo kale Misrta Arlaad urur ay dhaana ka dhisan Garowe oo kale waa dugtaa oo waan awoodnaa yaani dhalinyaro ishalqaanta ka dhisan hormuudku anaga oo iyagana urur kale oo iyagana la yiraahdo oo gaalkacyo aan jeclahay Qardho Boosaaso Muqdisho oo wixii caasimadda oo kale ka howlgala intaas oo dhan hadana waxa waaye iskooda isku xilqaameen marka soo lama dhigi karo rajadii dawladda ay ka qabeen dhalinyaradaasi way ay ka qoorsadeen in iyagu jabkooda dib ugu laabtaan bay hanteen sababta waxay ka qayb qaateen abaarihii bay ka qayb qaateen iyagoo aan hadda cidna aysan wax ka sugayn oo cidna iyaga laftikooda isxilqaamay bulshadii dhex galay dadkooda ay wax u qabteen kadib marka abaarihii laga soo gudbinaa waxay isku dayeen in dalkoodii ay hagaajistaan nin bara bulshada gaar ahaan Facebook aad u isticmaalo baa tahay dhawaan waxa laga jabsaday akoonkaaga caanka ee Facebook hore ay isticmaali jirtay ma garanayno sida adiguba hadda ii sheegtay inaadan garanaynin badan laakiin dad baa waxay leeyihiin gabdhu la xasaawi jiray laga yaabo Tulmaan inuu baasirku uu siiyay kadibna halkaasi arintaas ma beeninaysaa markay macquul ma inaad qof u dhibato tiraahdid yahay baasirkii yahay ama akoonkii adaan ku dhiiftay wax macquulana noqon maskaxda gali karana ma noqon karo laakiin loo qofada marka bulsho aan u shaqeynin oo siyada kale caadi ahaan iyo loo qof markaas oo ka wasin ka dhaw qof saad sheegtay golaha shacabka aad u tarsantay waxaan filayaa 2020 kana xildhibaan in la dooranayo mar kale haddii waa loo gaarsiiyo oo one vote one person
ma laga yaabaa inaad soo sharaxdid horta waxa la yahay madar marka saa hami leedahay hamigaaga inaad mar walba aad ka qusatid ma haboona waan jecelahay insha Allah hadii Ilaahay idinka dhigo inaan xilliyada dambe oo aan isdhihi karo Allah waa ku munaasabsan tahay inaan dib ugu soo noqdo saxada